marinbiyoodka Hurmuz wuxuu ka mid yahay marinbiyoodka ugu muhiimsan ee caalamka. wuxuu kala qaybiyaa gacanka Iiraan iyo badda Carabeed. Marinkani ayaa dherer ahaantiisa lagu qiyaasay ilaa 30 mayl. Marinkani waxaa dhanka waqooyiga ka xiga dalka Iiraan, halka dhanka koonfurtana uu ka xigo dalka Cumaan. maalin walba maraakiib badan oo sida in ka badan 2 milyan oo tan oo saliid ah ayaa halkani mara, taasoo u dhiganto ilaa 1 min 5 ee soo saarista shidaalka caalamka. sidaas darteed marinkani wuxuu marar badan sababay khilaafyo kala duwan. dagaal gacanka hadal oo lagu doonayo maamulada marinkani ayaa marar badan dhacay. in ka badan 40 sano u dambeysay marinkani Hurmuz waxaa ka jiray xiisado ballaaran. xiisadii ugu xumeed waxay dhacday dagaalkii Iiraan iyo Iraaq dhexmaray. dagaalkii dhexmaray Iraaq iyo Iiraan waxay marinkani soo dhoobtay maraakiibta yaryar ee badda si ay u horjoogsato maraakiibta shidaalka u sido Iraaq. sanadkii 1988 maraakiib dagaal ee Marinka ayaa duqeeyay maraakiibta Iiraan ee ku sugnaa marinka Hurmuz si maraakiibta shidaalka wado ay halkaasi uga gudbaan. markaasi kadib Marinka ayaa bilaabay weerar uu ku qaaday Iiraan, isagoo beegsanaya ciidamada Iiraan iyo kaabayaasha shidaalka ee Iiraan oo ku sugnaa marinka. maalintaasi gudaheeda Marinka wuxuu khasaaro gaarsiiyay ciidamada badda Iiraan ee halkaasi ku sugnaa. sanadihii u dambeeyay Marinka iyo Iiraanba waxay isku eedeynayeen inay si khaldan u isla dhaqmaan marka ay marayaan marinkaasi. khilaafkani soo noqnoqday ayaa waxay Iiraan go'aansatay inay ciidamo ku xoojiso marinkaasi, iyadoo caqabado ku noqotay maraakiibta halkaasi maraya shidaalka u gudbiyo gobolada kale. talaabadaasi ayaa waxa saameyn ku yeeshay qiimaha shidaalka ee sare u kacay. haddii ay Iiraan xoojiso amaradeeda marinkani ayaa waxa iska cadinay qiimaha shidaalku cirka qaban doono, kaasoo carqaladeyn doono kobaca dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamkaba. marka waxa ay isweydiin doonaan Iiraan ma haysa awood buuxdo ay tillaabooyinkaasi ku hirgeliyaan. haddii ay taas dhacdo, madaxda caalamka falcelin noocee ayay ka bixin doonaan. haddii ay taasi dhacdo, waxaa laga yaabaa in guluf colaadeed oo ka dhan Iiraan la bilaabo, iyadoo ciidamada Marinka ee gobolka Khaliijka ku sugan ay u diyaarsan yihiin dagaal fool ka fila ay la galayaan ciidamada Iiraan ee halkaasi ku sugan. tan iyo howlgaladii dagaalkii Iraaq iyo Iiraan waxay diidada saartay dhismaha ciidamadeeda si ay u maamusho marinka Hurmuz oo muhiim u ah caalamka. Iiraan waxay og tahay inay ka hortagi karto ciidamada badda Marinka. fartii qarniyada u dambeysay Iiraan waxay dhisay ciidamo bad oo tayo leh si ay uga hortagto khatar walba ee kaga soo wajahan dhanka biyaha iyo marinkaba. Iiraan waxay leedahay 2 cutub oo ciidamada badda, waxaana la kala oradaa ciidamada badda qaranka Iiraan iyo ciidamada ilaalada gacanka Iiraan. ciidamadani ayaa ku hubaysan ku dhawaad ilaa 2,000 oo dooman. doomadani intooda badan ayaa ah kuwa yaryar oo looga tiragalay inay dhinacyo ballan ka soo weeraraan maraakiibta waaweyn ee dagaalka ee Marinka. doomankani badan oo intooda badan hubaysan ayaa looga tiragalay in lagu mashquuliyo cadawga, halka kuwa kalena ay si toos ah u beegsanayaan maraakiibta dagaalka. dhanka maraakiibta waaweyn ee Iiraan waxay leedahay ilaa 7 markab, halkiina waxa ku xiran ilaa 48 gandaal. waxay sidoo kale Iiraan haysataa doomo ay ku xiran yihiin gandaallo ay sameeyeen Ruushka iyo Shiinaha. ciidamada badda Iiraan ayaa sidoo kale ku hubaysan ilaa 30 maraakiib oo quusta. 30kani maraakiib ayaa waxa ku jira 3 markab oo Ruushka sameeyo oo ah kuwa xawliga, sidoo kalena aad u hubaysan marka loo eego maraakiibta kale ee dagaalka Iiraan haysato. waxay sidoo kale leeyihiin maraakiibta xambaarto diyaaradaha. maraakiibtani ayaa ku sugan meel u dhow marinka si ay mar waliba looga baahdo ay howlgal u bilaabaan. Iiraan xeebaheeda waxaa lagu dhisay xero ciidan ee badda, waxayna u kala yaalaan xeebaha Bandar Abbas, Bandar Lageen iyo Qashin Island. dhanka ciidamada cirka Iiraan, diyaaradaha Iiraan intooda badan waa kuwii hore oo duug ah. Iiraan waxay mar dhow Ruushka ka soo iibsatay gantaalo dhan 4 ka mid ah gantaalka S-300 oo Ruushka uu sameeyay si ay ugu xoojiso quwaddeeda cirka.
iiraan waxay sidoo kale samaysay gantaalada S-300 iyadoo iskeeda u samaysatay laakiin lama arkin habka wax u kumaado balse iiraan ayaa sheegtay inuu ka wanaagsan yahay S-300 uu ruushka sameeyay iiraan ayaa sidoo kale ku hubaysan gantaalada ridada dheer iyo kuwa gaagaaban oo ay ka soo iibsadeen Shiinaha iyo Ruushka cabsida ugu weyn ee Mareykanka dhanka Iiraan ayaa waxay tahay gantaalada batriga ah oo ay Iiraan haysato iiraan waxay haystaa ilaa labo ka mid ah gantaalada C-8-1 C-8-2 oo kiiba uu haysto ilaa 2 batri waxaana gantaaladani sameeyay Shiinaha dhanka Mareykanka wuxuu haystaa hub walba oo Iiraan haysto iyo kuwa kale wadamada gobolka haysan qaybta shanaad ee ciidamada Mareykanka ayaa xil uu ka saaran yahay gobolka waxa halkaasi ku sugan markab weyn ee dagaalka ee caawiya ciidamada hubaanta ee dagaalka kula jirto daacishta Iraq iyo Syria markabkaasi weyn ayaa dushiisa waxa saaran noocyada diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka waxaana sidoo kale saaran ciidamada qalabka ee kala duwan ee Mareykanka waxa sidoo kale la aaminsan yahay in 2 ama 3 ka mid ah maraakiibta quusato ee Mareykanka inay ku sugan yihiin gobolka waxaana la sheegay in markabkaasi uu ku hubaysan yahay ilaa 150 gantaal oo kuwa meelo dheer wax ka burburiyo dhankaasi iyo garoomada Mareykanka ee gobolka garoonka Ciise ee ku yaala Bahrain Al-Udeyd oo ku yaala Qatar Al-Dafiya iyo Al-Minhad oo ku yaalo Emiraadka Carabta Camp Lemonia oo ku yaala Djibouti iyo Diogo Gashi oo isna ku yaalo Badweynta Hindiya dhammaan garoomadani waxaa yaala diyaaradaha F-15 F-8 F-16 iyo AWACS tankas iyo diyaaradaha dronka B-52 bombers iyo sidoo kale diyaaradaha B-1 iyo B-2 bombers ayaa garoomadaasi dhammaan ku wada sugan marka haddii ay Iiraan xirto Marinka Hurmuz Mareykanka wuxuu wadaa furitaanka Marinkaasi si maraakiibta ay nabad uga gudbaan ciidamada Iiraan waxay muujiyeen karti iyo awood tan iyo howlgaladii 30 sano u dambeeyay ka dhacay Marinkaasi markaasi oo Iiraan dagaal kula jirtay Iiraan oo ciidamada dagaal xoogan la gashay Iiraan laakiin marxalada maanta jirto Mareykanka si sahlan kuma wajahi karo Iiraan Mareykanka si uu furo wuxuu ku qasban yahay inuu dhammaan burburiyo miinooyinka Iiraan ay ku aastay Marinka iyo sidoo kale ciidamada badda Iiraan oo u muuqdo kuwa awood ballaaran leh bixinta miinooyinka waxay u baahan tahay maraakiibta socodka gacban iyo diyaaradaha qumaatiga kaco si gantaalada iyo miinooda Iiraan looga hortago sidaas darteed waa inay mudnaanta kuwaad la siiyo qorshahaasi haddana inkastoo ay jiraan caqabadooyinkaasi Mareykanka wuxuu leeyahay diyaaradaha horumarsan ee ka howlgala gobolka Mareykanka waa in weerar kala joogsi lahayn uu ku qaado saldhigyada ciidamada cirka ee Iiraan balse tilaabadaasi haddana waxa caqabad ku ah gantaalada S-300 ee Iiraan ee ku ilaaliso awoodeeda cirka laakiin Mareykanka wuxuu isna khibrad u leeyahay wax ka yeelida hubka S-300 Mareykanka wuxuu leeyahay hubka S-300 oo hal loogu tababar ahaan uu isticmaalo saxarada Nevada Mareykanka wuxuu sidoo kale wadaa tababarka ka hortagida hubkani S-300 balse haddii ay Mareykanka doonayaan inay ka awood hoodaan Iiraan waa inay marka hore burburiyaan awoodda cirka Iiraan gantaalaga batriga hago iyo ciidamada badda Iiraan waxa sidoo kale Mareykanka ku adag inuu si sahlan ku gaaro guushiisa ilaa inta uu ka burburinayo awoodaha yaryar ee Iiraan ay ku leedahay dhanka ciidamada biyaha markii uu Mareykanka waxaasi oo dhan sameeyo ayuu gaari karaa tilaabada bixinta miinooyinka ku aasan Marinka laakiin weli waxaa la hubaa in Mareykanka khasaaro lixaad la gaarsiin doono xitaa waxaa laga yaabaa in Mareykanka laga burburiyo markabka weyn ee sida diyaaradaha iyo ciidamadiisaba isku soo wada duub furitaanka Marinka Hurmuz ma fududa waxayna qaadan kartaa dhowr maalmood kasaarista ciidamada Iiraan Marinka ayaa sidoo kale ahaan doona mid aan sahlanayn waxayna qaadan doontaa howlgal ballaaran oo lagu weerari doono dhammaan difaacyada Iiraan oo haddii laga roonaado Iiraan lagu khasbi doono inay timaado miiska wada hadallada waxaa sidoo kale la hubaa in Iiraan ay weerari doonto xulufada Mareykanka sida Israa'iil ugu horeyso taasoo Israa'iil ay wadamo badan taageero ka raadsan doonto hase yeeshee Iiraan waxaa ka hor imaan doona wadamo badan oo ku tiirsan Marinka Hurmuz ku dhawaad shidaal qiimihiisu dhan yahay ilaa $1 bilyan ayaa halkaasi maalin walba maraa oo intooda badan la geeyo wadamada Aasiya 8% oo la geeyo Yurub halka 7% la geeyo wadanka Mareykanka iyo kuwa kaleba shidaalka oo ah laf-dhabarka dhaqaalaha wadamada Carabta sida Sacuudiga iyo Iraq sidaas darteed xiritaanka Marinka Hurmuz wadamadaasi iyo xulufooyinkooduba waa u dulqaadan karaan waxayna ciidamadooda ay ku weerari doonaan ciidamada Iiraan ee xirtay Marinkaasi